وان ardaydani oo gaaraysa ku dhawaad 120 arday kuwaas oo dhameystay qaybta koowaad ee waxbarashada kana qalin bedeshay dugsiga faca weyn ee Cumar ibn Abdul Aziz ahna dufcadii 14aad ee ka baxda dugsigan ayaa xaflad sagootin ah loogu qabtay xarunta iskuulka ee xaafadda Weejir ee degmada Gurceel iskuulkani oo la furay sanadii 1996 lagana furay degmada Gurceel intaasna ay ka baxayeen dufcado kala duwan kuwaas oo maanta ku faafsan daafaha caalamka ugu horeyn waxa xafladda daafuray qaar ka mid ah ardayda qalin jabisay kuwaas oo madasha ka soo jeediyay khudbado kala duwan manhajkii aqoontii cilmi bulsho maskaxdeena adinka muftaaxeena iyo nooc madaxdeena macallimiin mug weyn oo maamuus leh iyo sharaf heerkan maanta taagnahay adinka mas'uulka ah oo yeeshay mudankeeda martabadan hadda joogna dartiin baan ku mutaysanay midigtiinu ma liicdo muraayadii anshaxow macallinkayga iskuulka marna waalidkayow ilaahay maskaxdiina muruqiina baraaji adduunkana meel sareetiyo farxad noogu mishaaxa teaching and we are very grateful to our teachers. waxaan mahadcelin weyn u celinaynaa macallimiinteena haddaan nahay ardada form 4 ruuxaantii waxaad tihiin macallimiin aanan ilaawi karin We are also grateful to our teachers as for 4 students you are truly unforgettable teachers. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa waalidiinteena macallimiinteena kuwaas oo dhif iyo dheefba nagula soo dadaalay inaan noqono aqoon-yahanin ka soo baxay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Cumar ibn Abdul Aziz qaar ka mid ah barayaasha wax ka dhiga dugsigan ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay waxbarashada sii wadaan iskuulkani intii imtixaan dawli ah la qaadayay iyo ka horba ma aynaan arag arday ku feel garooba ama ku dhaca dugsiga sare waa dhexdan oo wasaaraddu ay qiimeyn ku sameeysay dugsiyada soddonka dugsi ay ugu sareysana markasta meelaha ugu horeyso dugsiga aanu ku jiray haddii hore loo sii sameey lahay qiimeyntaasna waxaan rajaynaynaa inuu sabab ka baxeen qiimeyntaas oo caddahay adinkana waxaan idinka rabnaa haddii la qiimeeyo dugsiyada ugu soo hormara waxaan rajaynaynaa inaad ka mid noqon doontaan oo aad soo hoy doontaan guushaas soo naftu jecesha marka meel xumay ku wadaan waxyaabaha naftu ay ka hanayso markasta in aad sameeysid oo ku dadaashid isku day arday marka waxaan kula dardaarmayaa ardada form 4 ka ah waa tagaysiin ilaahay waxaan kaga baryayaa sida aad u wada joogtaan 119 kiinaba in ilaahay oo idin kaso inaad guuleysatiin imtixaankana natiijo fiican aad ka keentiin insha Allah toobteenkana kaalmaha ugu sareeya inta ugu badan in idinka noqdaan ayaan rajaynaynaa waxaan in ka codsanaynaa marka aan kula dardaarmaynaa intii joogtana waa ay joogtaa waa isla joognaa intii baxdana waxaan kula dardaarmayaa dhaqankiina diintiina ku taagnaada yaanana laynka leexinin waxa loo yaqaan dhaqankiina yaan laynka leexinin qof kasto markasta waxa ku qurux badan tahay gabar ama wiil waxa ku qurux badan tahay inaad diintaada ku dhaganaato intaas ayaa ku soo gunaanadaya waxaad xaqiijiseen qaybtii koowaad ee maxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina markaad ka taqarusteen dugsiga sare waxaan idin sugaya wadooyin kala duwan oo badan oo leh caqabado iyo waliba wanaag badan intaba leh marka waxaan idinku talinayaa sida aad ugu dhabar adeegteen inta hadda aad soo marteen si kasi qurux badan inaad ugu dhabar adeegtaan inta soo socoto maxaa yeelay qofka cilmi la'aan iyo aqoon la'aan waxba ma noqonayo dhanka kale gudoomiyaasha jaamacadaha kala Safana Balaasma iyo Imaam Shaafici ayaa ardadan qalin jabiyay ku dhiirigeliyay inay waxbarashada sii wadaan jaamacadda Safana runaantii marka laga hadlayo deegaanka wax badan ay ka qabatay sida runaantii difcooyin badan oo ay soo saartay oo jiil badan ayaa maanta deegaankii waxay ka yihiin dad maaragtay macallimiinka ah isbitaaladii ka shaqeeya waxaan dhihi karnaa marka jaamacaddu deegaanka waxay ku soo kordhisay wax la taaban karo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah jiilkan hadda soo baxaya qalin jibi oo ka qalin bedelanaya macaahidda oo ugu horeeyo iskuulka Cumar ibn Abdul Aziz waxaan ku dhiirigelinaynaa inay horta marka hore deegaankooda joogaan deegaankooda wax ka bartaan jaamacadaha deegaanka ay xoojiyaan naantii tayadu waxay ku imaanaysaa in ardaydii deegaanka wax ka baratay ay joogto waxna ka sii barato anaga hadafkeena ugu weyn ee jaamacadda maanta aan kala soo qayb galnay waxay tahay inaan idinku hambalyeeyno sidoo kalena aan idinkula dardaarno inaad waxbarashada meeshiina ka sii wadaan oo aadan waxbarashada ka caajisin waxa jiro markaad waxbarashadu wado wax badan iyo duruufo badan oo ku dib dhigayo wax yar waxaan rabaa inaan
dardaarinkayga ku soo gabagabeeyo inaan warka sii dheereeyo mar rabo aan warkayda ku sii dheereeyo waxbarashada inta aad ku guda jirtaan dabcan duruufo badan iyo waxay leedahay dhibaatooyin fara badan waxay u baahan tahay qof u soo adkaysto qof juhdi geliya haddaad aragtaan dadka maanta dadka hogaamiya ee soo waxbartay ayagoo diyaarad ku socda waxba ma soo baran ayagoo gaari lagu wado waxba ma soo baran laakiin dadka hadda xafiisyada ama maamulada ama meelaha ugu sarreeya ka gaaro oo hadda dalka hogaamiyo waxay soo mareen waxay u soo dhabar adeegeen waxbarasho waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan hambaliyeeyo oo aan idhaahdo allaha idinku gooleeyo imtixaanka ardada maanta ka qalin bedelanaysa iskuulka waxaan u rajaynayaa guul waxaa lagu yaqaanaa bahda iskuulka Cumar bin Cabdilcasiis kaalin muuqata oo mugle inay soo muujiyaan waxaan rabnaa asaagiin tiimkii idinka horreeyay saaxiibadiin in aad tusaalihii ay bixi jireen wacdara ka wanaagsan sanadka inaad soo bandhigtaan idinkana imtixaanka idin sugaaya waxaan rabnaa inaan idinku dhiiri gelino inaadnan ka baqin oo aadnan ka cabsan in aad tihiin dadka ugu aqoonta badan ee ka qaybgalaya inaad ogaataan oo keliya intaasaan rabnaa inaan idiin sheegno wixii oo jaamacadda iyo arrimaheeda ku saabsan ustaas cali ayaa banfalad idin siiya ayaa idinkaga filan wixii kaleeto warbixin daakhili ah waxaan rabnaa codsi idinkaga nahay inaad soo booqataan kambaska jaamacadda ay ku leedahay Guraceel oo aad timaadaan agaasimaha wasaaradda waxbarashada galmudug ee degmada Guraceel Xasan Cabdullaahi Warsame ayaa isaguna ardada ku dhiirigeliyay inay dadaalkooda si laba jibaaraan maadaama uu sugayo imtixaan shahaadi ah hadda fonforka fariisanaysa waa dufcadii ugu horeeyday ee wasaaradda waxbarashada ay filter gareyso waay ardadii ugu horeeyday wasaaradda waxbarashada ay ka qaada galmudug imtixaanka dugsiga dhexe ay ka qaada waa ardada maanta fadhisa waa arday juhdi lagu soo baxshay muddo badan kormeero wasaaradda waxbarashada ay ku sameeyday manhajka wasaaradda waxbarashada lagu anqariyay runtii marka muhiimad gooni ah aad noo leedihiin waad ka duwan tihiin ardadii hore qalin jabin jirtay waxaad ku suntantihiin dadaalkii wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada maadaama aad tihiin dufcaddii ugu horreeyday ee imtixaankii wasaaraddu ay qaaday manhajkii wasaaradda waxbarashada ee qaranka la soo kowsaday waxyaalo badanaa kulansateen sidaa darteed natiijada ka dhalan karta waxay tahay inaad imtixaanka natiijo fiican ka keentaan kaalimo fiican aad ka gashaan hadhow wax soo saarkiinana laga dareemo jaamacadaha laga dareemo waxaan leeyahay hambalyo waa ku faraxsanahay in chapterkii dugsiga sare aad maanta iska soo afmeerteen waxa idiin harana waa takhasus qof kasta meeshii ay xiiseynaysa filliga xiiseynaysa inay doorato nolosheedii kala sii wadato qaybta idiin harta waa qayb ka fudud qaybtii hore laakiin ka xamaasad badan dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa inaad waxbarashada qayb inta idiin dhiman aad dhammaysan doontaan mustaqbal ifayana aad geli doontaan wasaaradda waxbarashada haddaana waa idin garab taaganahay horena waa idin garab taagnayn hadda inta idiin dhimanna insha Allah haddii Ilaahay idmo waan idin garab taagnaan doonaa ugu dambeyntii maamulka ku-xigeenka iskuulka Cumar bin Cabdilcasiis Axmed Cali Cabdi ayaa munaasabada soo xiray haddii maaragtay taladana la yeelayana waxaan leenahay jooga deegaanka oo maaragtay haddaba waa aragteeno ardo badan oo iskuul ay qalin jabisay ayaa deegaanka joogta wax ka barata shaqaysata iskuulada wax ka dhigta ganacsi leh meelaha maaragtay kala duwan ee nolosha ku jira sidaasoo kale noqda oo maaragtay ka qayb noqda inaad maaragtay deegaankii joogtaan oo camirtaan mar kastoo ardadu baxdo tusaale hadda 118 arday ayaa maaragtay ka baxaysa iskuulka Cumar bin Cabdilcasiis kaliya iskuulada kalena waa intoo kale iyo ka badan waayo kuwa qaar 100 kuwa qaar maaragtay 50 kuwa qaar 60 waxa oo dhan marka ay deegaanka ka tagaan waxay noqonaysaa in dhalinyaradii ay deegaanka hijroodaan ayay noqonaysaa jooga marka deegaanka quruxdii deegaanka tiina deegaanka jooga